maanta waxaanu soo gabagabeynaynaa doodihii iyo wixii laga soo jeedinayey xeerka kaabista iyo wax ka beddelka xeerka wadamarista gaadiidka xeer number 56 2023 waxaan soo jeedinayaa inta oo gole gacanta ha taagto dejiye yaa diiday yaa ka aamusay dhammaan 22 wasiir iyo wasiir ku-xigeenka fadhiba way ogolaadeen oo hambalyeynayna wasaaradda gaadiidka ta kale waxa weeye arrintii ay keentay wasaaradda waxbarashada iyadoo dood way baahnayn talay keeneen ay waayo arag u yihiin oo horena berigii koofkii oo kale ku xaliyeen gacantana aynu u taagno unanimous mid waliba ra'yi wanaagsan baa keentay aad iyo aad ba mahadsantihi labadaas way dhammaadeen gol ahaan waxaan isu raacsannahay maanta xaaladdii 18 May lagu maray inay tahay xaalad taariikhi ah oo uguba taariikhda la geli doonta oo ah in maalintaa aynu dabaaldegaynay 18 iyo 16 ka horreeyey labadaba huwanta cadowga ah ee gobolka Sool dagaalada ka wada gardarrada ah inay soo weerareen si aan loo dabaaldegin oo ay u carqaladeeyaan dabaaldega Somaliland ee 12 sano ka soo wareegtay waxaanu aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa oo u bogaadinaynaa oo ugu ducaynaynaa oo taariikhda baaldahaba ku leh dhammaan ciidamada kala duwan ee qaranka Somaliland ciidanka qaranka ka booliiska asluubta badda ka immigrationka iyo kuwa amniga nabadda ilaaliya dhammaantood waxay fuliyeen ciidamadaasi iyo wasaaradahooda waxay fuliyeen in cadowgiina soo wareena ay 10 dhigaan jabiyaan dalka oo dhanna dabaaldega iyo isku soo bixi habeen iyo maalinba uu noqdo amni oo cadowgu far la soo gali kara waa aad iyo aad baynu bogaadinaynaa ciidamada waxaa kaloo la bogaadinayaa dhammaan shacbiga Soomaaliyeed miyiga magaalo dalka gudihiisa miyiga qof waliba halkiisa inuu ka muujiyo wadannimadiisii oo soo xilqaamay waxaad ka sii weyn dadka Somaliland ee daafaha adduunka ku nool meel walba qaarad walba gobol walba waxay ahayd xafladii ugu weyn ee jaariyada dibadda deganay ay ku muujiyaan wadanimadooda taasoo ay tuseen cadawga Somaliland marka hore inaanay Somaliland ciyaar ahayn ay tahay rabitaan shacbi iyo caalamka waxaan imika daraa media dadka sawirey tusiya maxaa jira inay si wacan ugu tuseen Somaliland difaaceeda iyo dhismaheedu inuu yahay mid rabitaanka shacbiga ah oo aan dheerayn aad iyo aad baynu gol ahaan iyo qaran ahaan iyo mid ahaanba ugu mahadnaqaynaa dadka guud iyo dibadba wadannimada ay muujiyeen waana ku mahadsan yihiin ambalaasna ku soo xidhaa shirkeennii aad iyo aad baa mahadsantahay. Assalaamu calaykum.